waxaa markan hadda aad maqlaysaanin muusikada loo yeeranhayo ra'iiskii ku-meelgaarka ahaa oo jamhuuriyadda soomaalida ee soo gelahaya baarlamaanka ayaad maqlaysaanin raggii nuwaabta ahaa oo dib baarlamaanka ku jirayna waxay fadhiyaaniin baarlamaanka isaga ayay sugahayaaniin qolkii militarigana isaga ayay muusikadii u qaadahayaaniin hadda ayuu soo gelahayaa saaka baarlamaanka sidii barnaamijka loogu tiilay waxaa la isugu yimid in ninka ra'iiska oo ku-meelgaarka markuu yimaado baarlamaanka reer ku jira iyagoo wada jira baarlamaanka ummadda in ay dhaartaaniin markii ay dhaartaaniin in markaa kadib la doorto ninkii ra'iiska ahaa oo ku-meelgaarka ahaa markaa kadib baarlamaanka ummaddu isagoo wada jira in lagu dhawaaqo wadajirka Soomaaliya iyo Somaliland haddana buuqa iyo muusikada iyo waxa aad maqlaysaanin iyo damaashaadka dhacaya waa ra'iiska ku-meelgaarka ah iyo baarlamaankii ummadda oo wada fariisanaya oo wada jira baarlamaanka raggii nuwaabta oo baarlamaanka ku jiray hadda ayuu soo galay oo fariistay oo isu diyaarinaya hawshii in lagu dhawaaqo waa maalin weyn oo farax badan waa maalmihii aan sugaynay waxaanu rajaynaynaa maanta in wixii hawl ahaa oo labada dal oo Soomaaliya israacooda ku saabsanaa in maanta ay dhamaadaaniin waxa baarlamaanka nooga muuqda nuwaabtii ka timid Somaliland oo la fadhiya nuwaabtii Soomaaliya baarlamaanka korka sare waxaa fadhiya raggii dibadda ka yimid oo iyo raggii journalistayaasha ahaa iyo raggii wax masawirayay iyo giddi oo iyaguna ka qaybgalaya oo fiirinaya oo eegahaya Soomaaliya maanta arrinta weyn oo ka dhacaysa baarlamaanka meeshiisa koreeto ayay wada fadhiyaaniin giddi indhaha ayay nagu wada hayaaniin jiro noobtaha giddi hadda wada istaageen waxay wada istaageen ra'iiskii jamhuuriga ahaa oo ku-meelgaarka ahaa oo xalayto qaatay oo ku dhawaaqay qarnimada Soomaaliya ayaa soo galay hadda ayaa baarlamaanka fariistay hadda ayaa baarlamaanku wuxuu bilaabayaa hawshiisii sidii la isugu dir lahaa Soomaaliya iyo Somaliland iyo markaa kadib sidii loo dooran lahaa ra'iiskii jamhuuriga ahaa oo ku-meelgaarka ahaa haddana ra'iiskii baarlamaanka iyo ra'iiskii jamhuuriyadda ku-meelgaarka ahaa ayaa wuxuu cadeeyay in fadhigii uu furan yahay waxaa hadda istaagay ra'iiskii jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu hadal u jeedinayaa ragga nuwaabta oo baarlamaanka isugu yimid oo ka koobma nuwaabtii baarlamaanka Somaliland iyo nuwaabtii baarlamaanka Soomaaliya hadda ayaa waxa la bilaabayaa hawshii iyo ku dhawaaqidii lagu dhawaaqi lahaa israaca Soomaaliya iyo Somaliland waad xasuusantihiin in aynu isku raacnay halakan laga baasgareeyay xaggaasna laga baasgareeyay in maanta intii ka bilaabata waddanka Soomaaliya iyo Somaliland mid ay isku yihiin يا دقيقة كل شيء يا استاجتين إيه صعب إسكا وحنو قادنا سيدي أنو لجديد ويا هيد إن دقيقة داس إنه ضحدنا إنه صار دافني أسمبليغا عضوية أعضاء ماشي تنفردها إن يهين أعضاء أسمبليغا عامكا أو وطنية أو جمهورية صوماليا waxaa loo dhibtoon yahay haddaba inaynu bilownaa dhaartii ay dhaaran lahaayeen raggu mid mid ayagoo loogu yeero inay qaadiga sheekh abubakar cabdullaahi gacantiisa ay ku dhaartaan ayagoo ku dhaaranahaya ismiga ilaaheen inay waddanka iyo shacbiga ay lilaahi u noqonayaan oo ay daafacayaan dastuurka iyo sharciga xaaji cusmaan ragga nin ugu yeer qaaligu ha ku ag fadhiista xagga ee hala dhaariyo nin ugu yeer waa la dhaarinaya waxaad hadda dhegaysanayseen ra'iiskii jamhuuriga ahaa oo ku-meelgaarka ahaa oo hadalka u jeedinayay baarlamaanka nuwaabta ragga baarlamaanka isugu yimid
oo maqashiin hayay in saaka sababta la isugu yimid ay tahay sidii loogu dhawaaqi lahaa israaca Soomaaliya iyo Somaliland hadalka markuu soo jeediyay raggii nuwaabta oo baarlamaanka isugu yimid ee ka kulmay nuwaabtii Somaliland iyo nuwaabtii Soomaaliya gidi waxay ku jawaabeen shacabkii aad maqlayseen shacabkaas aad maqlayseen ayaa wuxuu cadeynaya sida raggan nuwaabta oo baarlamaanka isugu yimid gidi ay isugu raacsan yihiin oo wax innaba hadal haba yaraatay ka qaba uusan ka jirin israaca labada dal ee Soomaaliya iyo Somaliland sida ayaa Soomaaliya iyo Somaliland maanta ay isku raacayaan dibaddana waxaad ka maqlayseen muusiga iyo dramka ka dhacaya ee qolkii militariga ay sameynayaan oo baarlamaanka dibadiisa ummadii oo dhamina waxay dhooban tahay dibadda waxay sugaysaa oo ay aad u dharaysaa sidii labada dal ay isu raaci lahaayeen iyo xorriyad raggii nuwaabtahan iminka ayay fadhiyaan hawshii rasmi ahaan hadda ayay bilaabanaysaa ay bilaabanaysaa hadda ayaad maqli doontaan hawshii waxa ay ku dhammaato haddana waxaa bilowday dhaartii la dhaarinayay ragga nuwaabta ah oo baarlamaanka ku jira ee Soomaaliya iyo Somaliland oo lagu dhaarinayay israaca labada dal oo Soomaaliyeed iyo mid ahaantooda iyo hawsha ay u qaban hayaan iyagoo wada jira labada dal oo ay kala socdaan waxaa hadda dhammaaday dhaarintii la dhaarinayay ragga nuwaabta ah oo baarlamaanka ummadda haddana waxaa istaagay ra'iiskii jamhuuriga ah oo ku meel gaarka ah ragga nuwaabta ayuu hadal u jeedinaya wuxuu hadalkaasi ku saabsan yahay labada dal oo Soomaalida ah sidii ay isu raaci lahaayeen waxaynu bilaabaynaa iminka doorashada ra'iiska jamhuuriyadda waxaa la idin qaybinayaa baqshadooyinka boxkaas qof walba waxaa la siinayaa baqshadaas ay ku jirto warqadda aad arkaysi marka nin walba wuxuu ku dhigayaa magac ninkii ay la tahay inuu u dooranayo ra'iiska jamhuuriyadda magaciisa ku dhigaya shardi ma aha ninka meesha lagu dhigay oo ra'iisul jamhuuriyadda loo doonayo inuu yahay ragga kan meesha fadhiya ka mid ah nin ka mid inuu yahay shardi ma ah ninku asaga ikhtiyaar waxaa hadda sidii aad maqlayseen oo ra'iisku uu sheegay la qaybinayaa warqadihii la siin lahaa ragga nuwaabta ah oo ay ku dooran lahaayeen ninkii noqon lahaa ra'iisul jamhuuriga ku meel gaarka ah waxay u dhibtootay ragga in loo cadeeya ninka la dooranayo oo warqadaha la idin dhiibay aad ku dooranaysiin waa ra'iiska jamhuuriyadda oo meelgaar weeye muwaqad waxa weeye micnadu intii dastuurka inta ummadda loo bandhigo laga aqbalayo ama laga diidayo waa muddo aan sano ka badnaan karin warqadihii loo dhiibay ragga nuwaabta ah oo lagu dooranaya ninka ra'iiska raggii nuwaabta ahaa nin walba markii uu qoray ninkii kula qumanaa inuu noqdo ra'iisul jamhuuriyaha oo magaciisa qoran ayaa waxay u geeyeen ninkii sekretariyahana wuxuu ogeysay ra'iiskii warqadihii lasoo qoray in raggii nuwaabta ahaa ay ka soo dhammaadeen dhow waxaa la fatashi doonaa warqadihii oo waxaa la tirin doonaa warqadaha ninka ku soo baxa magaciisa marka ayaa waxaa loo sheegi doonaa ninka ra'iisul jamhuuriyaha ياسين عبد الرحمن عبد الله عثمان waxaa hadda dhammaaday magacyadii la soo qoray oo ragga nuwaabta oo baarlamaanka ku jira ay soo qoreen ninkii ay dooran lahaayeen hadda ayaa waxaa la tirin doonaa ninkii ku soo baxay ra'iisul jamhuuriyihii ku meel gaarka ahaa ee muddo halka sana ra'iisul jamhuuriyaha marka ayaad maqli doontaan ninka lagu dhawaaqo baarlamaankiina weli waa fadhiya gidina waxaa la sugayaa soo baxayo ninka noqon doona ra'iisul jamhuuriye dadka Soomaalida kii ugu horeeyay ku meel gaarka ahaa hadda ayaad waxaa la tirinayaa dadkii magacyadii ku soo baxay ra'iisul jamhuuriyaha intii magac oo dadku doortay marka ayaa la ogaanayaa ninkii ugu tira badnaa oo ra'iisul jamhuuriyaha noqon doona mar dhow waxaanu maqli doonaa oo naloo sheegi doonaa oo lagu dhawaaqi doonaa magacii ra'iisul jamhuuriyaha jamhuuriyadda cusub ee Soomaaliya ee ka koobanta Somaliland iyo Somaliland sida qaynuunku uu doonayo waxaa in la doortay noqon kara jamciyada ragga cadaada cadadooda ثلثين ninkii ay vote siisa haddii markan ugu horeeya la waayo aqlabiya 3 meelood u dhig 2 ah markana lagu celinaya ayadana waxaa la doonayaa sidoo kale aqlabiya 3 meelood dhig 2 ah marka saddexaad wixii ka dambeeyo marka saddexaad uu ku jiro waxaa kafaaya aqlabiya saaxiqa Abdullah Uthman 107 boqol iyo 7 dadka maqlahayan oo ra'iisul jamhuuriyadda doorashadiisa ay bilaabatay waxaa loo doortay Aadan Cabdulla Ismaan ee loo doortay
raggii nuwaabta ahaa oo baarlamaanka joogay oo dhan saacadaha aad maqlaysaa nin iyo istaag ay ku dareen waxay ku doorteen oo lagu dhawaaqay ra-iisul jamhuuriyadda ku-meel gaarka ah inuu noqdo aadan cabdille cismaan raggii nuwaabta ahaa oo baarlamaanka isugu yimid oo vooteeyey tiradooda waxay ahaayeen 114 ayay waxay u vooteysay aadan cabdille cismaan oo u dooratay ra-iisul jamhuuriyadda ku-meel gaarka ah isaga inuu noqdo waani hadal igama soo bixi karayo aad baan u calowsanahay waa idinku mahadinaya waxaana leeyahay haddee meesha tan waa inuu yimaado labada naa'ib ra'iis assemblyga ninka u cumri weyn xaaji bashiir ismaaciil culays weyn oo aan la qaadi karin baad madaxa iga saarteen waan idinku mahadinayaa ixtiraamka aad ixtiraamteen ilaahayna waxaan ka baryahayaa inuu ila qabto adinkana waxaan idin leeyahay waxaan idinka doonayaa haddee inaad xilka aad saarteen aad ila qabatiin haddana waxaa fadhiistay kursigii baresintaha ee baarlamaanka xaaji biye ismaaciil sida aad maqlayseen oo ugu yahay ra-iisul jamhuuriyaha markii isagii loo doortay madaxnimada jamhuuriyadda sida uu u yahay isagu ninkii u weynaa labada naa'ib ra'iis ninkii ugu fil weynaa uu yahay isaga ayaa baarlamaanka nuwaabta ku fadhiistay kursigii ra'iisnimada waxaan ku qaadanayaa isinka ilaahi inaan ku joogsado kulle ammaana oo muhimo daran ra'iisul jamhuuriya iyo inaan daafaco quwadayda oo dhan xoogayda oo dhan dastuurka maxaan ku daafacaa limaslaxati alwatan iyo wasunna wallahi aan ku dhaar billahi aan ku dhaar tallahi aan ku dhaar qur'aanka ilaahay aan ku dhaar inaan maaragta ammaanada aan qaaday limaslaxati alwatan iyo ummadii inaan ku joogsado ku daafo aan ku dhaar waxaad degeysanayseen dhaartii la dhaariyey ra-iisul jamhuuriyihii markii madaxnimada isaga loo doortay hawsheenni midii weyneyd waa dhacday hawsheenni midii weyneyd waa inoo hagaag waxaa inoo hadhay marka wixii ka dambayn lahaa oo ay u horrayso waxay la tahay ra'iiskii jumciyatan qowmiyadaas aynu u dooran lahayd iyadaas iyo wixii inala soo kaloo gudboonaada wakti baynu ka fadhiisan doonaa haddana camalkeenni saaka intaasuu ku egyahay laasaduuta ee toolta erimiyata fadhiguna hadda waa rafacan yahay wakti laydiin soo sheegi doono buuna u rafacan yahay fadhigii baarlamaanka saaka intaa ayaa lagu xiray ninkii madaxda u ahaa baarlamaanka oo madaxigeenka ahaa ee ugu weyn labada madaxigeen ugu filweynaa ee madaxnimada u fadhiistay ayaa wuxuu caddeeyey mar haddii la doortay ra-iisul jamhuuriyadda ku-meel gaarka ahaa in fadhi kaleeto oo la isugu yimaado lagu dooran doono ninkii baarlamaanka madaxda u ahaa saakana fadhigii intaa uu ku xihan yahay raggii nuwaabta ahana giddi waa ay wada kaceen raggii kaleeto oo meesha isugu yimid maanta oo joornaalistayaasha ahaa iyo ergooyin kaleeto oo meesha isugu yimid waa ay sira joogsadeen fadhigii baarlamaanka saaka la isugu yimid hawshiisii intaa ayaa lagu dhameeyey